xarunta gobolka Doolo ee magaalada Wardheer ayaa waxaa ka qabsoomay xuskii maalinta haweenka adduunka ee 8 Maars kaasoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka Soomaalida isla markaasina ay ugu horeyso wasiir ku-xigeenka xafiiska xirfadaha iyo shaqo abuurka ee dowladda deegaanka Soomaalida Marwo Axmed Cumar mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo kuwa degmada Wardheer munaasabadan caalamiga ah oo markii 114aad laga xusayo caalamka halka dalkan Itoobiya ay tahay markii 49aad ayaa si habsami leh uga qabsoontay magaalada Wardheer waxaana ka soo qayb galay munaasabadan mas'uuliyiin isugu jirtay heer deegaan, heer gobol iyo heer degmo oo ay hogaaminayso Marwo Axmed Cumar wasiir ku-xigeenka xafiiska xirfadaha iyo shaqo abuurka ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo madaxa arrimaha haweenka iyo caruurta ee magaalada Wardheer iyo marti sharaf kale. munaasabadan ayaana loo qabtay qaybaha kala duwan ee haweenka ku dhaqan magaaladaasi Wardheer ee gobolka Doolo. ugu horeyn wasiir ku-xigeenka xafiiska xirfadaha iyo shaqo abuurka ee dowlad deegaanka Soomaalida Marwo Axmed Cumar iyo sidoo kale madaxa xafiiska arrimaha haweenka ee degmada Wardheer Marwo Cabdi Maxamed ayaa gabagabadii si qoto dheer uga warbixiyay ahamiyadda ay leedahay maalinta xuska haweenka adduunka ee 8 Maars loo asteeyay. haweenka adduunka loo asteeyay Maars 8deeda taasoo maanta ay ka duwan tahay maalmihii hore xuska uun ahaa oo ah in lagu xaqiijiyo ka qayb qaadashada iyo ka faa'iideysiga haweenka arrimaha horumarka iyo arrimaha bulshada. waa inaanu haween ahaan wada tashanno. haweenka lagama maarmo waad ogtihiin hadday noqoto dawladda, hadday noqoto bulshada, hadday noqoto guud ahaanba adduunka. haweenku laf dhabar kaliya iyadoo waa udub dhaxaadka guriga weyn. wax kasta oo bilow leh haweenku ka bilowda, haweenkuna ku dhamaada. marka maadaama saasaan aaminsanahay ka dawlad ahaan iyo ka xisbi ahaan haweenku garab muhiim ay noo yihiin, garab muhiima iyo udub dhaxaad ay noo yihiin, waa qasab in haweenka la taageero, gacanta lagu qabto, arrimaha bulshada ay ka faa'iideystaan maadaama bulshada qaybteeda ugu weynayeen tira ahaanna bulshada waxay u dhigmaan laba qaybood marka loo qaybiyo qayb ayay yihiin haddayna kaba badaninba maadaama ragga waxyaabo badan ay saameeyaan haddayna ka badanin haweenku marka tirada badan haddaan la hormarinin wadanku ma hormarayo, haddaan dhaqaale lagu hormarin ma hormarayo, arrimo bulsho waxbarasho haddayna helin sidaasi lamida, caafimaad haddayna helin bulshadu ma caafimaad qabaysay ka dhigan tahay. marka haweenka in si kastaba ha ahaatee caafimaadka ay ka qayb qaataan oo ay ku baraarugaan inay caafimaadka ay ka qayb qaataan sidaasi lamida waxbarashada, sidaasi lamida arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadeedba intaba kaalinta ugu muhiimsan inay ka qaataan maadaama bulshada qaybtii ugu badnayd ay yihiin. taasaana keentay maanta Wardheer masaafada dheer bisha Ramadaan aanu soo marnay. anigoo taa eegaya waxaan leeyahay Ramadaan Kariim ayaan idin leeyahay khaasatan haweenka degmada Wardheer. waxaan idin rajaynayaa Ramadaan mubaarak inuu idin noqdo, Ramadaan wanaagsan oo Ilaahay naga aqbalo, kuwii laga aqbalo Ilaahay uu naga dhigo. xuskan waa maalinka haweenka, waa maalin international oo caalami ah, waa maalin heer caalami laga xusayo sanadkii 114aad, heer dal laga xusayo sanadkii 49aad. taa waxay cadeynaysaa hooyo qaaliga ay tahay iyo heerka ay caalamka ka taagan tahay. waxay tan ay kaga duwan tahay munaasabadihii hore. waa mid loogu talagalay jamaca horumarinta ay nagala soo qayb galeen dhammaan wasiiriintii deegaanka ee gabdhahanagii ay nagala soo qayb galeen. jamaca horumarinta haweenka loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo oo lagu garab istaago oo taageero loogu muujiyo si ay uga faa'iideystaan fursadahooda shaqo ee shaqo abuur. hooyooyinku inay ku xirmaan xarumaha caafimaadka ay qaataan talaalka joogtada ah, ilmahooda inay uga faa'iideeyaan talaalka joogtada ay u dhamaystiraan. dhinaca waxbarashada hooyooyinku inay ka faa'iideystaan, ilmaha inay ku barbaariyaan waxbarashada, hooyooyinku inay samaystaan akoon dhaqaale si ay ugu daboolaan nolol maalmeedkooda loo baahan yahay. marka xuskan waxaa loo baahan yahay sida ay haweenku ku horumari lahaayeen, ay jamacaan ugu horumari lahaayeen. waa munaasabad qaali ah, waa munaasabad loogu talagalay oo inooga duwan kuweenii hore oo ka farxad badan. waxyaabahay uga farxad badan tahay kow waxaa ka adee xaruntii baan ku dhacay, kow waxaa ka inagoo ka faa'iideysanayna dhammaan fursadihii leena siiyey ee shaqo abuurka, inagoo ka faa'iideysanayna inaga oo waxbarashadii iyo horumarkii oo dhan ka faa'iideysanayna
haweenku maadaama ay door muhiim ah ay yihiin lafdhabartii bulshada ay yihiin aasaaskii nolosha aasaaskii nolosha ay yihiin dhammaan haweenku inay noqdaan kuwo jamac ahaan isu gargaara isu kaalmeeya isaga faa'iideeya horumarkii ka faa'iideeya nabadgelyadii ka faa'iideysta oo nabadgelyadii ka qayb qaata sad awalba door muhiim ah uga qaadanayseen inaad uga qaataan horumarkii uga qaataan nabadgelyadii uga qaataan marka aad iyo aad baan idinku bogaadinayaa sida quruxda badan aad uga soo qayb qaadateen munaasabadeena qaaliga waad mahadsantihiin